Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu walaalaha garbahaygo kusoo dhawaada wehelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsa youtube-ka aad naga daawaneysana waa Xafsa channel ala barnaamijkan waxaa idin soo gudbisaa isla aniga walaashin Xafsayid soo dhawaada meel walba joogtaan waxaan Allah subxaanahu wa tacaala idinka baryaa cimri dheer cibaado sugan oo Allah idin siiyo insha Allah waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan aniga waa fiicanahay alxamdulillaah waxay noo soo socday kitaabkeeni imtixaanaha ahaa ee la magac baxay baro boqol xadiis hase yeeshee intaan u gudgalin darsigeeni maanta ugu horeyn haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channelka soo booqatay subscribe saar haddii aad hore ula joogto like saar usii share garee asxaabtaada nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeeni 44 insha Allah bismillaah عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مخابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم رسولك الله نبتقلين حريص كركي ساعتي وحدهاي لا تجعلوا هكيلنا بيوتكم قريهنا هكيلنا مقابر قبور sababta maxay tahay in shaydaanku yanfiru wuxuu ka cararaa min albeyti guri alladii tuqra'u lagu dhex akhriyay fiihi dhexdiisa suuratul baqara nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa haatee wuxuu dhahay ha ka yeelina guryihiina qubuur maxaa yeelay shaydaanka wuxuu ka cararaa guri lagu akhriyay dhexdiisa suuratul baqara ka cararaa insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen sidoo kale waxaan rajeynayaa suuratul baqara inaad fahanteen muhiimadda ay leedahay iyo sidoo kale muhiimadda ay leedahay in guriga lagu akhriyo ayaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen insha Allah waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkayaga sidoo kale waad ku mahadsantahay haddii aad subscribe saartay guud ahaan halkan ayaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkeena caawo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu